Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaa dhici karta inaad ka warqabto biyo diirran oo la cabo subaxda hore xilliga calooshaadu ay madhan tahay waxtarka ay leeyihiin. Sidoo kalena waxaa dhici karta inaad ka warqabto isticmaalka malabka saafiga ahi waxtarka uu jidhka u leeyahay. Laakiin fursad kale ayaa ah in koob biyo aad diiriso kadibna aad ku darto malqacad malaba oo aad cabto subaxda hore xilliga quraacda saacad ka hor. Isticmaalka labadan shay oo la isku daro oo la isticmaalo xilliga calooshaadu ay madhan tahay waxay yareeyaan miisaanka saayidka ah ee jidhka waxaanay xoojiyaan kartida jidhka ee xilliga maalinimo iyagoo aadna u wanaajiya caloosha iyo guud ahaanba uurku jirta. Waxaanay meesha ka saaraan cilladaha ku dhaca dhuunta gaar ahaan riiraxyada iyagoo dawana ka ah hargabka. Waxaanay jidhka ka saaraan sunta waxyeelada u geysan karta jidhka. Isku daritaanka kurkumka ama huruudda iyo malabka waxaa la isticmaali jiray xilliyo hore iyadoo loo isticmaali jiray dawo ahaan laguna daweyn jiray xanuuno badan waxaana lagu sheegay mid ka mid ah dawooyinka dabiiciga ee ugu wanaagsan. Haddaba in malqacad kurkuma oo shiidan aad ku darto malqacad malab saafi ah kadibna aad ku darto koob ay ku jiraan biyo diirrani markay qaboobaanna aad cabto subaxdii iyo habeenkii muddo hal wiiga waxay jidhka kala dagaalamaan infekshanka iyo jeermiska waxaanay jidhka ka nadiifiyaan sunta beerkana waxay kala dagaalamaan xanuuno badan waxaanay hoos u dhigaan miisaanka xad-dhaafka ee ku jira qofka jidhkiisa waxaanay wanaajiyaan xasuusta qofka iyagoo kana hortaga xanuunka Alzheimer. Dhinaca kalena ruuxa dumar ah ee uur kale waxaa lagula taliyaa intaanay isticmaalin cabitaanka noocana inay dhakhtarkeeda la tashato. Sida lagu sheegay mowqica Bold Sky ee ka faallooda arrimaha caafimaadka in la isku daro malab iyo qolofal marna la wada isticmaalo waxay dawo ka yihiin hargabka qufaca joogtada ah waxa kale oo ay dawo ka yihiin xanuunada ku dhaca kaadi haysta isla markaana waxay dawo ka yihiin infekshanka ku dhaca meelaha kala goysyada ah ee jidhka iyo xataa cilladaha ku yimaada habsami u shaqaynta wareegga dhiigga ee jidhka. Sidoo kalena isku daritaanka labadan shay oo mar la wada isticmaalaa waxay jidhka kala dagaalamaan bakteeriyada iyo fayruska isla markaana waxay ilaaliyaan caafimaad qabka wadnaha waxaanay wanaajiyaan halbowlayaasha dhiigga ee wadnaha isla markaana waxay ka hortagaan infekshanka ku dhaca habka neefsashada ee sanka waxaana yareeyaan xadna u yeelaan kor u kaca kolestaroolka waxaanay ilaa xad wanaajiyaan nidaamka dheefshiidka. Haddaba waxaad isugu dari kartaa labadan shay qaabab kala duwan kolba kii adigu aad awoodo. Qaababkaas oo ay ka mid yihiin inaad malqacad malaba iyo wax yaro qolofala oo shiidan isku darto kadibna aad ku sii darto koob shaah oo bigaysa sidaasna aad ku cabto iyo inaad malqacad yaro qolofala oo shiidan aad ku darto koob ay ku jiraan biyo diirrani kadibna aad ku sii darto laba malqacadood oo malaba sidaasna aad ku cabto iyo inaad malabka intii aad ka cabbi karto aad dusha kaga darto wax yaro qolofala oo shiidan isla markaana aad cabto maalintii 2 jeer.